الله u naxariistee waxa magaaladan London maanta ku geeriyooday Axmed Cabdinuur oo kamid ahaa wariyaashii Soomaaliyeed magaca weyn ku lahaa bulshada dhexdeeda. Axmed waxa uu ku xanuunsanaa magaalada London labadii toddobaad ee u dambeeyay. Axmed Cabdinuur waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur sanadkii 1955. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ku soo qaatay magaalada Muqdisho. waxa uu dhigtay jaamacaddii Lafoole. Axmed waxa uu ka mid noqday wariyaashii raadiyo Muqdisho 1982 isagoo ka mid ahaa raggii ugu firfircoona. waxa uuna ka mid ahaa wariyaashii lagu furay telefishinkii Soomaaliya horaantii 80-aadkii. Axmed waxa uu ku soo biiray BBC-da sanadkii 1997 isagoo noqday wariyihii BBC-da magaalada Muqdisho ee ugu soo warrami jiray xilliyadii hogaamiye kooxeedyada. waxaana markii dambe uu u wareegay xafiiska BBC-da ee Nairobi ilaa iyo markii dambe uu ka howl bilaabay daartii Bush House iyo xafiiska BBC-da uu ka shaqaynayay. waa halkan aan hadda idinkala hadlaya ilaa iyo 1919 uu shaqada ka fariistay. haddaba maxamed axmed xaaji cagmadhige ayay muddo dheer isla soo shaqeeyeen. axmed cabdinuur waxa uu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee ku soo biiray 80-aadkii ee radio Muqdisho. anigoo maxamed axmed xaaji cagmadhige ayaa in yar ka horeeyey. kadibna waxa uu ahaa macallimiinta waxaana wax ka dhigi jiray iskuulka la yidhaahdo yaasiin cusmaan oo ku yaala magaalada Muqdisho. warbaahinta markii uu ku biiray waxa uu ka mid ahaa raggii barnaamijka ciyaaraha iyo weliba wararka oo xafiiska wararka ka tirsanaa. burburkii kadib waxa uu ka shaqeeyey Muqdisho isagoo wakiil u ahaa qaybta af Soomaaliga ee BBC-da. kadibna London ayuu yimid halkaa uu shaqaalaha ka mid noqday tan iyo intii u dambeysay. axmed ilaa 2 toddobaad ayuu xanuunsanaa siday ii sheegtay xaaskiisa maaragtay Zaynab oo runtii aan uga tacsiyadeynayno guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan. axmed cabdinuur nin dhallin yar isagoo ah oo ku biiray idaacadda tan iyo inta uu maanta ka geeriyooday nin dabeecaddiisu ay isbeddesho ma aanay ahayn. haddaba si aan taariikhda Axmed Cabdinuur aan wax badan uga sii sharaxno waxaa qadka xarunta wararka hadda si toos u fadhiya wariyeena Mawlid Xaaji Cabdi oo muddana isla soo shaqeynayeen. Mawlid, bal shakhsiyan bal noo sheeg Axmed qof caynkee ayuu ahaa? cismaan waa mahadsan tahay. dabcan horta ilaahay ha u naxariisto Axmed. barnaamijkeenan maanta wuxuu ku soo baxay si runtii aad iyo aad u adag. waan la soconnaa xafiiska joogtay saabiin waxaana sugaya daawadayaal badan mooyaane aad bay u adkayd runtii saaka markii geeriduna soo gaartay Axmed sida xafiiska looga dareemay iyo dhammaan BBC-da qaybaheeda kala duwan xitaa qaybaha afafka qalaad. Axmed runtii dadkii ugu dambeeyay isla shaqeeyaan ayaa anigu ahaa gaar ahaan barnaamijka ciyaaraha ee timinta tooska ah. sidoo kale Axmed qaybtii ugu dambeysay wariyaashii la shaqeynayeen raadiyaha markii la xirayay 2009 iyo 2019 February ayaan ka mid ahay qaybta xafiiska London markii la xirayay. Axmed aan si gaar ah u xuso maanta maraan marayay xafiisyada BBC meel ka mid ah waxaan soo xasuustay meeshuu fariisan jiray. wuxuu ahaa nin xitaa markii shaqada lagu jiro jecel meel gaar ah inuu fadhiyo sida yani nin asluubtiisa siday ahayd iyo dhowrsanaantiisa iyo shakhsiyadiisa markaan ka hadlayo oo kale. xitaa meeshayna ku cuntayna maqaayadda oo kale markaynu xitaa isku nimaano oo aynu dabcan inaynu wada cuntayno xitaa Axmed wuxuu ahaa nin isagoo meel gaara fadhiista xitaa kursigiisa wuxuu ahaan jiray kursi aan isbedelin oo jecel inuu fadhiisto. subaxii markaa xafiiska soo galayno oo kale wuxuu jeclaa markuu inuu yimaado shaqada xilli hore ka hor xilligiisii wuxuu jeclaa inuu fadhiisto meel kadinka hore oo xafiiska ka tirsan. halkaas ayuu cabaar fadhinaya nus saac kadib xafiisku soo gali jiray. galabtii markuu baxayana meeshaasuu fadhiisan jiray. nin wuxuu ahaa afgaaban oo aad iyo aad qof kasta oo BBC-da ka tirsan iyo qof kasta oo yaqaanaba Axmed aad u jeclaa. shaqada markay timaadana wuxuu ahaa nin shaqada jecel oo marka qaarkood aad arkaysid inuu ka hormarin jiray waxyaalo badan. cibaadada markay timaado wuxuu ahaa nin asluub badan oo cibaado badan. waxyaalaha kale oo aan aadka u xusu karna waxaa ka mid Axmed markaynu ka sheekayna waxaani oo dhan adiga iyo aniga iyo asxaab badan oo BBC-da ayaa wax ka bartay Axmed waxbarashadiisii. qaybta BBC-da waxbarashada ama akademiyadda ayuu sidoo kale gacan uu ka geystay oo uu soo saari jiray barnaamijyo iyo warar loogu talagalay dadka inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan da'yarta. waxaan oran karaa wuxuu ahaa haliyey, waxaan oran karaa tiir,
waxaan oran karaa udub dhexaad inuu ahaa saxaafadda Soomaaliyeed waa tahay isla markaasna BBC-dana qof weyn oo runtii ka baxay waana dareemaynaa maanta xafiiska oo dhan waa laga dareemaya Cismaan aad baad u mahadsan tahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu ahaa oo taariikhda Axmed noo soo koobayay Axmed wuxuu ahaa qof dabeecad gaar ah lahaa oo aad ugu wanaagsanaa dadkana gacan qaban jiray shakhsiyan si aad ay ii taabatay ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Axmed Cabdi aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud cadde inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun saaxiibkayga qaaliga ahaa axmed cabdinuur ilaahay ha u naxariisto ilaahay samri iyo iimaan ha ka siiyo xaaskiisii caruurtiisii iyo qaraabadiisii intaa marka laga gudbo axmed cabdinuur waxa uu ahaa wariye Soomaaliyeed oo ruuga caddaa marka ay timaado af Soomaaliga waxa uu ahaan jiray nin cabqari ah waxa uu ahaan jiray qaamuus lagu soo hirto marka ay timaado isku turjumada erayada marka ay cayaaraha timaado 40 sano ugu dambeeyay cayaaraha dhacay iyo cayaartooydii caanka ahayd taariikh nololeedkooda cayaarihii ay ku soo caanbaxeen xataa cayaartii ugu horeysay ee qofkaasi cayaartooga magac weyn yeeshay wuu aqoon jiray waxa uu ahaa nin shaqo badan oo qabta howlo fara badan nin dulqaad badan nin deeqsi ah nin sawir badan nin u naxariista dadka masaakiinta ah nin saaxiibadiisa jecel idaacadaha marka laga shaqeynayo dadku waxay arkaan oo ay dhageystaan idaacaddii oo laga soo shaqeeyey xilliga laga shaqeynayo dadku waktiga ayaa ciriiri ku ah shaqaduna waxa weeye mid karkaba miirana axmed cabdinuur oo xanaaqsan lama sheegin hadday idaacadda xataa 2 daqiiqo ka dhiman tahay ama haddii ay 5 daqiiqo ka dhiman tahay oo waktiga salaada soo gasho waxa uu jeclaan jiray inuu salaadiisa tukado ragga uu u igmado howlahaasna inta badan xaaladiis way ogaayeen waxa uu ahaa nin aan la heli karin oo macaan oo dabeecad macaan oo maslaxa jecel oo Soomaalinimada jecel oo masaakiinta jecel barnaamijyadii abaaraha ka sheekeyn jiray iyo barnaamijyadii dadka barakacayaasha iyo qaxootiga ka shaqeyn jiray inta badan waxa uu ahaa suxufigii roog cadaaga ah isku dubaridi jiray waxa uu ahaa nin marka aad u baahan tahay oo hawsha adag tahay xataa hadduuna shaqeynayn guriga looga yeero waxa uu ahaa nin ayna hawsha ka maarmin waxa uu ahaa haddii dadka shaqaalaha ay wada shaqeeya ay qof tacsi gasho ama dhibaato ku timaado ninka naxariista ama asxaabteena noo hadla oo wanaaga jecel waxa uu ahaa nin diinta jecel sadaqada jecel aniga gaar ahaan waxaan aad iyo aad u xusuustaa allah u naxariistee aniga asaga oo meel BBC-da ka baxsan qaxwo ku cabayna xilli qabow ah ayaa waxaa noo yimid nin miskiin ah oo dhaxamaysan oo dadka waddanka u dhashay aada u diifaysan waxa uu yidhi anigu waa baahanahay erey kale ma oran axmed inta istaagay oo boorsadiisa furay ayuu ninkii wuxuu siiyey 10 geni markii uu fariistay ayuu aniga wuxuu ii sharaxay wuxuu yidhi ninkaas miskiinka ah erey itaabtay ayuu yidhi waa baahanahay buu igu yidhi qabowgaas aad aragtay maxamedow dhaxantaas aad aragtay aniga adiga qaxwaan cabaynaa banaanka si olokaca u fariisanay meel diiran baan kasoo baxnay ninkaas xalay banaanka ku hoyday ee baahan aan cili u maqnayn haddii aan sadaqo siin waayeyaa siinaya adiga waxaan kaa codsanayaa xaaladaas oo kale markaa aragto inaad dadka masaakiinta oo kale inaad sadaqa siiso iska daa Soomaalida iyo dadka baahan ee waddankan jooga mararka xaaladaha qaarkood ciid adxada oo kale ciidaha oo kale lacaga sadaqa ayuu dirsan jiray nin waxa uu ahaa sama jeclaa oo wanaaga jecel nin wuxuu ahaa saxaafadda aada ugu jajaban oo muddo dheer kasoo shaqeeyey dhinacyo waxaa jira dad badan aynan waxba ka aqoonin waxa uu ahaa nin aqoon-yahana oo macallin ahaan jiray jaamacadda Lafoolo ka baxay waxa uu ahaa nin cayaaraha jecel oo garsooraha heerka koowaad iyo heerka labaad bartay oo cayaaraha xaafadaha markuu dhalinyarada ahaan jiray xaafadda Boondheer uu ku dhashay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa nin ku weyn
saxaafadda soomaaliyeed, soomaalidana codkiisa ay mataqaanaa jecel yihiin, ka dhargiya dadka hadalka, eraya xulashadana had iyo gooraale marka uu ka dhegaysanayo wariyaasha la tababarayo erayada wuxuu dhihi jiray qofka ku dhegaysanaya marnaba iyo isdhihin ninku muxuu yiri, warwariyuhu muxuu sheegay oran. waa inaad hadalka ka dhargisaa, hadalka u tartiibisaa. ilaahay ha u naxariisto walaalkay, ajasha qof walba waqtigeeda imaanaysa, laakiin waxa uu ahaa nin soomaalida iyo meel kasta ay joogaan iyo saxaafadda ehel u ah, soomaalida dhibkeeda ninuu dhib u ahaa, nin wuxuu ahaa sama jeclaa, nin waxa uu ahaa hadalkiisa wanaag iyo deeqsiin leh, nin waxa uu ahaa marka aan jiraan feestooyinka waaweyn wadankeena lagu yaqaano ama raashinka soomaalida oo kale marka la sameeyo wuxuu ahaan jiray ninkaan u igmano inuu magaca soomaalida ku hadlo, cunooyinka si fiican ayuu yaqaan, nin naxariis badan buu ahaa oo u naxariista cid allaale ciddii uu la kulmo. walaalkay allah u naxariisto, kulligeenna samri iyo iimaan allah naga siiyo.